السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور محمد حسين آدم أقاسمها استالك جود جامعة مجال gaalkacyo. waxaan isaragaan rabaa aan ka baxshay briefing-iya xaaladda istaalka hadda uu marayo iyo marxaladuhu soo maray. Istaalka waa istaal guud oo dawli ah oo aan faa'iido samayn oo leh 500 oo sariirood kuna yaal bartamaha Soomaaliya una adeega bahaweynta Soomaaliyeed ee af Soomaaliya ku hadasha dhammaantood. Waxaan ognahay istaalku meesha ku yaal awgeed inuu istaalada ugu mashquulsan xagga bukaanka qabashadiisa daweynta ee waddanka inuu yahay. Waxaan bukaanada ka helnaa meel kasta ee af Soomaaliga la hadlo ay ku jiraan wadamada dariska ah sida Kenya iyo Ethiopia. Asbuuci waxaan qaabilnaa ama aan dhahaba maalintii waxaan qaabilnaa ugu yaraan 600 oo bukaan oo ah intaan bukaan socod eeg iyo qalid iyo daweyn iyo seexin isugu jira. Su'aal celinta mararka maalmaha qaarkood ilaa 1000 qof ayaa istaalkaan eega. Markaan sameynay tirakoobyo bilaha bishii waxaan gaaraa 25,000 ilaa 30,000 oo qof inaan qaabilno. Arrintaas soo istaalku wado oo shaqadiisu ay tahay mid aad iyo aad si habsami u socota ayaa waxa dhacday nasiib darrada ahayd bisha August 14-keedii ayaa hay'adda MSF waxay sikadiisa waan ku gaartay waddanka Soomaaliya oo dhan inay ka baxaan. Waad ogtihiin magaalada gaalkacyo hay'addaasi waxay ka shaqeysaa maamulka galmudug iyo maamulka Puntland oo istaalkan hadda ka tirsan yahay oo kala hadlayo. Labada istaalka South-ka magaalada gaalkacyo dhammaantiis ayaa gacanta ku hayay. dhinaca magaalada gaalkacyo waqooyi maamulka Puntland hoos timaada waxay maamuli jireen 4 department oo muhiimka ah istaalka kan oo qabata shaqada istaalkani 45% ilaa 60%. waxaas waxay yihiin waaxda carruurta qaybta maternity iyo hooyada daryeelkeeda qaybta quudinta iyo istaalka TB-da. afartaas program oo mid kale ka muhiimsan yahay hay'addaas gacanta ku haysay waxaa kaga bixi jiray ku bixin jireen agab aan aad u weyn sanadkii ilaa 2 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka ah. qaybtaas waxaa ka shaqeysa oo ka tirsan istaalka guud ee jaamacadda staff ah 184 qof. waxaan rabaa inaan u sheego in istaalkan uu adeego dhammaan shaqadii ka socotay istaalka jaamacadda gaalkacyo ee maamulka Puntland hoos yimaada. shaqadaas afarta waaxood waqtiga hadda aan la hadlayo waxa iska bedelay haba yaraatee ma jirto. balse waxaan ku darayaa inaan ognahay istaalka South-ka gaalkacyo oo maalintii lagu dhawaaqay arrintan isagoo xirmayba la joojiyay shaqadiisii bukaanadiisa uu adeegi jiray oo ah dhammaan ay ku hayeen ku soo jarneen hadda dhinaca kan waqooyiga magaalada gaalkacyo ee maamulka Puntland hoos yimaada. taas waxaa lagu sameeyay marka carruurtii iyo hooyooyinkii shaqadeeda ay noqotay 3 jibaar inta awlan daweyn jiray oo aad u badnayd inay misal 3 jibaar soo noqotay. marka culeyskaas baa wuxuu ugu noqday mid saa'ida. tan kale waxaan rabaa inaan la wadaago wasaaradda caafimaadka ee Puntland iyo hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya caalamiga iyo kuwa localkaba arrintaas response iyo waliba madaxtooyada Puntland markii warkaas aan maqalnay 14 August waxaa laga sameeyay tuwaabistii ku habboonay caalamka oo dhan ayaa madaxtooyadu gaartay iyo wasaaradda caafimaadka kale iyadoo wasaaraddu ay sameeyso xiriirinta 14 laga bilaabo ilaa 22 waxaa socday isaragyo shaqo iyo workshops iyo seminars ku aadan wasaaradda caafimaadka ay sameeyso hogaaminteeda oo dhammaantood ku aadan istaalkaas gaalkacyo shaqadu waday inay sameeyaan. waxaan kaloo rabnaa inaan la wadaagno istaalkaasi wasaaraddu iyadoo hogaaminaysa hay'adaha caalamiga iyo NGO-da inay qorshe hadda iyo cad ku jiro sida shaqadaas sida ahayd ay ugu socon lahayd wax iska bedelayeen. waxaan rabaa inaan idin sheego 4 department iyo istaalkiisa kala baxay inay u socoto sida caadiga ahayd. waxaan daadihinay socdana inaysan maraysan dhicin gaab shaqadaas la istaagto. waxaa soo geli doona wasaaradda caafimaadka oo iyadoo ka hoggaan ee Puntland iyo hay'adaha kale oo caalamka shaqeysay shaqadaas inay ka mid socoto. taas marka waxay abuuraysaa inaan mar labaad aan siina kalsooni dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo inta Soomaaliya ku hadashaba in daryeelka caafimaad ee istaalka la waday ama hay'adda MSF qaybaha hoggaamiyaha ama qaybihiisa kale oo ogtay istaalka in ka badan 18 department ay leeyihiin
waa isbitaal guud oo jaamacadeed ee dhammaantood sida caadiga u shaqeynaya